بسم الله الرحمن الرحيم قدامكم waxaan ka hadlaynaa waxa loo yaqaan SSID wax kale ma aha waxa loo yaqaan Service Set Identifier waxa Wi-Fi-gaaga laga garanayo Wi-Fi-yada kale tusaale ahaan gurigaaga waxa dad mobilkaaga eegtid waxa soo qabanaya intaasoo magaco kala duwan oo adeegayo mobilkaaga oo aad arki karto mobilkaagu ismaqli karaan taa waxa loo yaqaan SSID waayo waxay wada isticmaalayaan common frequency adigoo idaacada dhageysanaya idaacadana waxaad ka dhageysanaysaa frequency baad geysanaysaa frequency-ga 2.4 ama 5 ku doonaba ahaade waxaad ka maqlaysaa markaasi deviceskaasi ka ku soo hadlaya now halkan sidan sawirkeena ku aragno wireless router-keenani practical-kan aan ku arki doonaa wuxuu leeyahay SSID waxa loo yaqaan markaasi Service Set Identifier oo Wi-Fi-ga magaciisa Wi-Fi-ga magaciisa hadaanad aqoon kuma xidhmi kartid therefore network devices-ka kugu xidhani magacaasay soo tuun gareynayaan markaad magacaas soo tuun gareysiday hay soo raadiyaan waxay lagaaga baahan yahay inaad tahay qofkii saxda ah iyo in kale inaad gashatid password-kii loogu talagalay as soon as the put password sida ugu dhaqsaha badan le password-ka aad u gelisid waxa ku noqonaya markaa network device-kaagii inuu ku xiriirsamo router-kii